بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم إلهي هاي نقال بلو رمضان إن شاء الله رمضان تير سنة إلهي هاي نقرسيو عافماد إن شاء الله. وحن ما أنت دون يهين هذا ريال كدوبه أن أقوى رميو أصحاب تيدا ومتقنا أنت قربها جوكته وحي ودنك يام كسواركي in badan ba waxa la yiri war wadankii ma tagtid oo aad soo aragtid dhulkan umad wax ka sheegtaay alxamdulillah dhulkii waan tagay nabad qab baan ku tagay ilaahay mahadi weeyaan marka waxaan doonayaa inaan bal asxaabta iyo guud ahaanba dadka reer wadada qurbaha ku nool inaan bal wixii aan soo arkay wax wanaagsan iyo wax xun labadaba aan sheego wax dhaqan iyo wax siyaasada aan labadana iyagana wax ka sheego wixii aan ku soo arkay marka ugu horeysa waxa weeyaan waxaan qof walba wuxuu jecel yahay wixii lagu farxayo waxyaabaha lagu kala duwan yahay siyaasadda dib baan u dhiganayaa bal marka hore waxaan ka sheekeynayaa waxyaabihii muddadii aan joogay aan jeclaystay ee aan arkay horta madaarka Hargeysa markii aan saa u soo caga dhiganay waxaan wada saareen diyaaradda nin u dhashay beesha dhexe ama magaalada Hargeysa marka uu faanayay markaan soo socono wuxuu lahaa madaar intaas oo kun ku baxday oo milyan ayaan leenahay madaar qurux badan baan leenahay ayuu markaan soo gaadhnay madaarkii Hargeysa ninkii uu oohin ayuu ooyay aniguna waan farxay markaan ka soo degnay ayuu sii ooyay markuu arkay meel yar oo aad moodo cooshad oo musqushii ay urayso oo waxyaabo yacni aanad marna filaynin oo aad lahayn madaar intaas oo lacag oo malaayiin ay ku baxda ayaa saa u ekaanaya baa anigu aan ku farxay waayo kaygii bay dhisi waayeen boormay dhisi waayeen madaarkii boormay ayaa noo dhisi waayeen adarsa marka koogiina wax fool xun buu noqday waliba ay ku sheegeen international marka ninkii horta aad buu uga xumaaday really ilimba ayuu ooyay ninkaas aniguna waxaan ku yidhi bravo yacni lacagtii waad cunteen wadankiina waxba ugumaydaan qaban horta taasi waa ta ugu horeysa waxaa ii xigay oo aanan filaynin in soo dhaweyn يعني عجيبة وآدو قروح بدن لا يقصوا دوية مدارك هرجيسة ويسوا دويين دنيا رأس مرّانة ويلا بيا قبل دبله آد بنا نقوم هذا القيا هالكامر كان جاري بالك جالس وقاضي جاري جالس واحد قصور دحمري مجال هرجيسة وحياة بدنوا إيه مغضوي جلال واحد فرح حد قال لكن ما أركن وحكليها وحوجو حنا أركي وحوا على كا عمل وبتصرنا يجي ده هذا يكسر حسكسر الرعاية المهم gaariga Hargeysa markuu igala soo baxay ilaa Boorama meesha la yiraahdo Tulli la waxay igu hor yimiday niman saaxiibanahay walaalahay iyo niman kale oo qaraabanahay baa igu hor yimid oo iyaguna aad igu soo dhaweeyay halkaas anoo sidii madaxda la wado ayaa Boorama la igu soo gashay waxaan laakiin aad ugu farxay wuxuu ahaa dariiqa laamiga halkii barihii aanu ardada ahayn ama wadanka joognay Hargeysa iyo Boorama loo kala socon jiray 3 saacadood iyo 4 saacadood iyo wax ka badan waxaan ku soo gaaray magaalada Boorama saacad iyo badh markii aan soo dhaafay Tulli Goraya Cawl ee magaalada ii muuqatayna waxa weeyaan waaban kala batayba waayo anigu waxaan ogaa magaalo yar laakiin markii aan halka ka soo baxnay Goraya Cawl ka soo laabanay ee magaalada ii muuqatay yacni baaxad weyn oo aan qiyaas karin baan arkay waxaan qiyaasay markaa inta ka soo maqnaa inay 3 jibbaar ay ballaaratay wadada laamiga markaa waxa weeyaan waxay ugu rabtay raad yacni waxbay qabsadeen dadka wadanka jooga waxbay qabsadeen guryo qurux badan bay dhisteen hoteelay dhisteen dariiqyay samaysteen waxa ka maqan dadkaas wixii dawladdu u qaban lahayd ba ka maqan laakiin wixii ay dadweynuhu sameeyay lahaayeen wax badan bay sameeyeen oo wax weyn ninkii magaalada Boorama ka maqnaa 20 sano wuxuu ugu tagayaa dhul wadan kale sida xaqiiqadaana waxa weeyaan magaalada saddexaad ee Soomaaliya weeyaan marka la eego baaxadda iyo marka la eego dadweynaha ku nool marka la eego tiradooda waxa kale oo aad ugu mahadnaqayaa markii aan joogay Boorama يعني sida qof kasta oo magacayga garanayay oo ii soo dhaweynayay anaan oran karo muddadii aan joogay waxa igu noqotay inaan maalin joogay baan ayaan ismoodiyay
waayo waxa weeyaan asxaabtaydu way fara badan yihiin aad bay dadkao dhan ii jeclaayeen kuwa xataa anaan is aqoon baa waxa i yaqaanay oo i hambalyeynayay wax wanaagsan inaan qabanayna in badan baase ay hambalyeynaysa dadweynuhu markaa wixii ay qabsanay way qabsadeen oo waxa weya dhismayaal qurqurux badan oo dhaadheer bay dhisteen hoteello fara badan bay dhisteen iskuullay dhisteen waxa kaloon aada ula cajiibay dadka magaalada ku nool waxaan ku qiyaasay 70% inay yihiin dhalinyar buug iyo qalin sidata kuwa jaamacadda kasoo qalin jabiyey yacni waxa weeyaan meesha waxa yaalla power force baa yaalla haddii loo baahan yahay in laga faa'iidaysto gadabuursi ha ka faa'iidaysto dhalintooda ha ka faa'iidaysto rag iyo dumar magaaladu waa wada iskuul waa wada jaamacad ugu yaraan 6 jaamacadood baa ku yaalla 8 high school baa ku yaalla dugsiyada hoose dhexe iyo xanaanooyinku tira male marka waxaas waa wax dadweynuhu ay qabsadeen waana ku hambalyeynayaa dadweynuhu waxay qabsadeen marka maanta intaasaan kusoo gabagabeynayaa taxanu inoo noqon doonaa insha allahu annaga afurkaygii baa dhowey afur wanaagsan waana inoo berito wassalaamu calaykum